dad badan oo Soomaalida ayaa ku xayiran dalka uu dagaalka ka socdo ee Ukraine oo maalintii shalay si xariir ah u wajahaya duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xayiran dalkaasi ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in maalinta ka dambaysa ay xaaladdu ka sii darayso isla markaana uu maanta dagaalka aad u xogeystay. Cabdiqani Mayow Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda ku sugan caasimadda Ukraine ee Kiev oo waraysi siiyay idaacadda VOA waxa uu sheegay in hadda ay xaaladdu ku adag tahay. wiilkan oo tahriib ku galay dalka Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 2 jeer uu guul daraystay inuu ka baxsado dalkaas, sidoo kalena in ka badan 2 sano uu ku xirnaa xabsiyada dalka Ukraine kadib markii laga soo qabtay xuduudda. Cabdiqani ayaa sidoo kale sheegay in iyagoo Soomaali badan ay hadda ku xayiran yihiin caasimadda Kiev oo bandab lagu soo rogay isla markaana ay qorsheynayaan in wixii berri ka dambeeya ay isaga baxaan dalkaas markii bandagoo laga qaado caasimadda oo dagaalka ugu xoogan uu hadda ka socdo. sida ay maanta sheegtay wasiiradda arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss, dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa sii xoogaysanaya waxayna saadaalisay in dagaalkan uu sii socon karo sanado badan. Cabdiqani Mayow waxa uu sheegay in ay waayeen wiil Soomaaliyeed oo ku xanuunsan kaas oo ka mid ahaa dadkii laga sii dayay xabsiyada Ukraine si naftooda ay u badbaadsadaan. amnigeena halis ayuu ku jiraa, dagaalku waa uu sii xoogaysanaya, magaalada lagama bixi karo oo waxaa saaran bandow ciidanka ayaa waddaha noo taagan. dukaamadii magaalada waa la xiray, waxaan ku noolnahay cuntooyin fudfudud oo aan soo adeegan intii aan la xirin goobaha ganacsiga ayuu yidhi Cabdiqani Mayow oo ku sugan caasimadda Ukraine ee